Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed waa salaamantihiin. Walaalayaal halkan waxaan iigu soo gudbin doonaa productigeena kambaniga Forever Living Product siiba qeybta caafimaadka, siiba qeybteeda gaar ahaaneed loo isticmaalo dhiig karka, beer subaga iyo macaanka. Sidaynu ogsoonahay, xanuunadan oo ah xanuuno krooniga amba xanuuno muddo dheer jira uu qofku la noolaado isagoo qofku dawooyinkiisa uu qaadanayo, haddana waxay u keenaan cawaaqib xumo kaasoo asiibayaan dhiig karka kale uu keenayo inuu qofka indhihii iyo kelyihii iyo wadnihii iyo maskaxdiiba inuu asiibo. Macaankuna intaa in leeg kelyihii iyo indhihii iyo sidoo kale dareemayaashii intaba ay asiibi karaan isagoo qofku dawadiisina qaadanayo. Aad mar walbana aan maqlayno hebel macaankiiba ku kacay, dhiig karkiiba ku kacay, waxyaaba saas. Haddaba supplementigeenan isagoo qofku wuxuu ka caawinayaan in intaaba aynu kantaroolno oo cawaaqib xumaduu keenayeen lagaga hortagi karo. Waxay ka kooban yihiin 3 qaybood. 3daa qaybood waxaa ugu horeeya waxa weeye aloe vera gel-ka oo ah dacarta iyo sharaaba, oo aad iyo aad ugu wanaagsan uur ku jirta, qashin saar fiican qofkii u sameynaysa, caloosha oo kale yara socodsiinaysa, dhiigana kantarooleysa oo hoos u dhigaysa. Kan ku xiga waxaa la yidhaahdaa garlic and thyme. 2 qaybood buu ka kooban yahay, waa garlic oo toontiya iyo thyme oo ah geed la yidhaahdo thyme. Garligu waa toonta sidaynu ogsoonahay wax badan qabanaysa oo qabanaysa inay beer subagii iyo subagii hoos u dhigto, inay kantaroosho oo ay ilaaliso dhiig karkii oo dhiigu inaanu kicin ay ilaaliso, qofkii xinjirowgiisa ay iyadana furfurto oo dhiigga xinjirowga ay ka ilaaliso, oo dadka xinjirowga lehna way u fiican tahay. Sidoo kale dadka dhiig karka lehna waxay ku ilaalinaysaa inuu fahligii waxyaabaadkaasi ku yimaadaan oo dhiiggiisu si yaro fudud u xinjiroobo. Thyme-ka ugu dambeeya waxa weeyaan uu aad ugu fiican yahay waa qashin saare. Haddaba qeybtan dhiig karka productiga saddexaad amba supplementiga saddexaad waa Arctic Sea. Arctic Sea waxaa laga sameeyay saliidda kalluunka, waxaana si kale haddaynu dhigno loo yaqaanaa omega 3. faa'iidooyin badan leh, hoos u dhigta cholesterol-sha, waxay iyadu u wanaagsan tahay wadnaha iyo xididadiisa, maskaxda ayay u fiican tahay, oo xasuusta hadday noqoto cognitive-ka iyo inuu qofku soo jeedo oo uu qof soo jeeda noqdo ayay aad ugu fiican tahay. Waxay aad iyo aad ugu wanaagsan tahay oo aad u anfacaysaa halka indhaha, oo indhaha aad iyo aad u anfacaysaa. 3dan producti qofku 3 bilood buu qaadanayaa, laakiin bilbil ayuu qaadanaya, wax badanna caafimaadkiisa way ka anfacayaan. La talin ayuu u baahanayaa haddii gabadhu ay uur leedahay amba ilmo jaqsiinayso, waxay kala tashanaysaa qofka waqtul xaadirka productiga siinaya. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Productiga iyo product aad iyo aad u tayo sareeyaba waan haynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.